habeen wanaagsan kuna soo dhawaada telefishinka BBC Somali qodobada wararkeena caawa ugu waaweyn waxa kamid ah bilo ay Paris waday BBC-da waxa lagu ogaaday in wali Taliban ay ka howlgalayaan 70% Afghanistan waxaynu eegaynaa khasaaraha nafeed iyadoo caruur iyo ciroolaba ay dilayaan xagjirinta Falastiiniinta ayaa ka walaacsan inta Trump uu ka jaray hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ayaa sheegtay in go'aanka Mareykanka ay suuragal tahay in xasilooni darro uu ka abuuro bariga dhexe waxaynu la kulanay wiil yar oo Gaana u dhashay oo sameeyay baaskiil biyaha ku soconaya wuxuuna doonayaa in badda lagu tijaabiyo baaritaan ay BBC-da samaysay ayaa lagu ogaaday in Taliban ay 70% si xor ah dalka Afghanistan uga howlgalaan mintidiinta ayaa horumar xawli ah sameynayay sanadihii la soo dhaafay tani waa baaritaankii ugu muga weynaa ee lagu qiyaaso awoodooda koox BBC-da ka tirsan ayaa la hadashay in ka badan 1200 oo xogagal u ah 39 degmo taasi oo sawir guud ka bixisay weerarada ururka Taliban muddo 3 bilood ah natiijada waxay muujinaysaa in ka badan 15 milyan oo qof ayaa ku nool dhulka ay Taliban xukunto amaba ay joogto qaybta casaanka ah waxa waa meelaha ay joogtada u weeraraan Oliyah Atrafi iyo filim qaade Suhaib Sharifi ayaa gaaray gobolka ugu dhimashada badan wadanka ninkan waxaa lagu magacaabaa Terminator waa naanays macnaheedu yahay qof wajiga uga eegnin lafuhuse biryihiin weli waa taliyaha saldhigga qaybta saddexaad ee booliiska xuduudda Halmen waxa uuna magaala madaxda gobolka ee Lashkargah ka difaaca ururka Taliban saldhiggan waxaa lagu hayaa sheekooyin la xidhiidha geesinimo iyo rag si lama filaana geeri uga badbaaday gantaal ayaa madaxa iga dhaawacay ciidamadan waxay ku dhawaaqeen inaan goobta ku dhintay walaalkay ayaa u yimid qaadista meydkayga balse dhaqaatiirta waxay ogaadeen inaanan dhiman lafta madaxa ayay bir ku xireen ma fogeyn markay miino ila qaraxday oo lugaha iga go'een balse waqtigan Afghanistan ma habboona in taliye fiyow uu guriga fadhiyo boqolaal askari oo British iyo Mareykan isugu jira ayaa ku dhintay Halman iyaga oo difaacaya calanka Afghanistan laakiin tan iyo markii ay ka baxeen gobolka 70% Halman waxay gacanta u gashay fallaagada Taliban hadda bartamaha magaalada iyo ururka Taliban waxa u dhaxeeyo oo kaliya waa guutada taliya weli labada ciidan oo aad isugu dhow ayaa si joogta isu weydaarsada aflagaado laakiin maanta dagaalku waa mid cay ka kulul waxaana rasaas lala soo beegsaday saldhigga waa salaan ay askartu si diiran uga jawaabtay dadka rayidka waxaa ku habsaday ciqaab iyo burbur sida aad ka aragtid gurigan oo ay barbar ka duqeeyeen Talibanku barbarna ciidamada amniga ee Afghanistan korka waxaa ka duqeeyay diyaaradaha Mareykanka laydhka iyo bustahan gubtay waxay ku tusayaan baaxadda dagaalka holaca iyo hubka la isu adeegsaday kaasoo ay qoysaska deegaanka qaarkood xamili waayeen 10,000 oo qof ayaa ka barakacay dagaalkan kuwaasoo hadda ku nool xeryo cariish ah dawladuna dhinac ayay madaafiic nooga soo garaacayeen Talibaankuna dhinac dhexda ayaanu ku jirnay u jirnay markii Taliban ay maamuleysay deegaanka qalalaasaha wuxuu yimi markii ciidamada dawladda ay yimaadeen dagaalkana uu bilowday waa dagaal aan sabi iyo ciroole midna loogu turin sanadkii hore dhakhaatiirta laanqayrta cas ee Lashkargah waxay sheegeen in ku dhowaad 1,000 qof ay ku naafoobeen dagaalkan Malik waa 11 jir waa uu argagaxsan yahay hadalna ma awoodo miina ay Talibanku aastay ayaa la kacday isaga oo ku ciyaaraya beertooda
waxa uu qaraxa ku waayey labadiisii lugood iyo wiil ay saaxiibba yihiin. carruurtu habeen walba baqdin ayay ku nool yihiin. waa nolol aad u argagax badan. waa xaalad aad u nugul. waxaana ku noolnahay saacad iyo daqiiqad. waxaan nahay dad dhintay oo nool. dagaalkani waxa uu gobolkan ka socday 17 sannadood. dagaalkaas oo hal man ku dhiig baxday caalamkuna ilaaway. faahfaahin dheeraada ku saabsan warbixintan iyo kuwo kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Soomaaliya adigoo moobilkaaga ka gelaya. kulan degdeg ah oo ay yeelanayaan deeq-bixiyaasha caalamka oo dhaqaale loogu ururinayo Falastiin ayaa ka dhacaya xarunta baarlamaanka Yurub ee Brussels. Maraykanka ayaa ku hanjabay in uu jarayo deeqda haddii Falastiiniyiintu ay diidaan wadahadallada geedi socodka nabadda ee Israa'iil. waxayba ilaa iyo hadda hakis gelisay $65 milyan oo loo qorsheeyey in la siiyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiin. wuxuuna Maraykanka sheegay inuu isbeddel ku samaynayo, laakiin Gaza waxaa laga digayaa dhibaato xun haddii dhaqaalaha la jaro, sida ay Naciime Maxamuud sida ay ku waramayso. najwa iyo daahir labaduba waxay u shaqeeyaan hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga ee Falastiiniyiinta ee UNRWA. iyaga iyo carruurtooduba waxay u diiwaan gashan yihiin qaxootinimo, kuwaasi oo ay saamayn karto go'aanka Maraykanka ay kagala noqonayaan lacag malaayiin dollar ah. hooyo ahaan aad ayaan arrintan ugu walwalayaa. haddii lacagtan inta dhiman la keeni waayo, UNRWA waxay galaysaa xaalad ay ku qasban tahay in la xidho iskuulada iyo goobaha caafimaadka. waxaa lagu qiyaasaa in 270,000 oo arday ah ay ku nool yihiin Gaza. ku dhowaad qof walba oo ku nool dhulka saboolka ee Falastiiniyiinta waxa uu helaa nooc ka mida gargaarka. UNRWA waxaa loo sameeyey in ay taageerto boqolaalka kun ee Falastiiniyiinta ee ku barakacay dagaalkii Carabta iyo Israa'iil 1948. ku dhowaad 70 sano kadib, qaar ka mida qaxootigaasi iyo qaar badan oo kuwii ay sii dhaleen ayaa weli waxay ku nool yihiin xeryaha aadka u buux dhaafay ee UNRWA ee ku yaalla bariga dhexe oo dhan. Falastiiniyiintu waxa ay ku baaqaan in xuquuq ay u leeyihiin ay dib ugu laabtaan dhulkii taariikhda u ahaa. ra'iisul wasaaraha ayaa BBC-da u sheegay in lacagta la siiyo ay tahay in loo wareejiyo hay-adaha kale ee gargaarka. si loo helo natiijo wax ku ool ah in qaxootiga lagu soo celiyo Jaffa, waxay sii wadaysaa dhibaatada. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan Falastiin halka kama mid ah ee dhibaatada ayay qayb ka tahay. laakiin saraakiisha qaramada midoobay waxa ay diideen fikradda ah in hay-addani ay caqabad ku tahay nabadda. waa guuldarrada axsaabta siyaasadda in la xalliyo arrimaha qaxootiga ee sababaya qalalaasaha. marka uu qaraar soo baxo oo ku salaysan xeerka caalamiga ah oo ku saabsan qaraarka qaramada midoobay. magaalada Gaza waxay dadku ka digayaan in la jaro miisaaniyadda la siiyo hay-adda UNRWA, taasi oo aad u saamayn doonta dadka gargaarka aadka ugu baahan. raalliada Farxaan Maxamed Jimcaale ayuu kaasi ahaa. bal markana aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka maanta. madaxweyne Trump ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay ahmiyadda Maraykanka cusub isaga oo Koongareeska ka jeediyey hadalkiisii ugu horreeyay waddanka. wuxuuna sheegay in uu rajaynayo in jamhuuriga iyo dimuqraadiga ay si wadajir ah ugu shaqeeyaan dhammaan muwaadiniinta, balse wuxuu shaki ka muujiyey mucaaradka isagoo la xiriiriyey soo galootiga, dembi iyo dhibaato dhaqaale. in ka badan 270,000 oo Suuriyaan ah ayaa ka qaxay waqooyiga galbeed ee dalka ilaa iyo bishii Diseembar, sida ay sheegtay qaramada midoobay. mas-uul sare oo ka tirsan qaramada midoobay Ursula Miller ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay u sheegtay in dadka ay ku nool yihiin teendhooyin ku meel gaar ah kadib markii ay ka soo carareen dagaalka gobolka Idlib iyo waqooyiga Hama. Sacuudiga ayay tahay in laga joojiyo hay-adda xuquuqda aadanaha qaramada midoobay sida laga soo xigtay warbixin ay soo saareen 2 garsoore oo British ah. waxayna ku eedeeyeen in xadgudubyo daran oo bani aadanka laga galay ay ka dhaceen Sacuudiga, oo ay ku jirto in si qarsoodi ah loo xiray 10 ruux. Britain ayaana la filayaa mar dhow in ay martigeliso amiirka dhaxal kale ee Sacuudiga Mohammed bin Salman. hay-adda gargaarka MSF ayaa sheegtay in habka caafimaadka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe uu yahay mid aanan jirinba, taasi oo ka timid
dagaalka sokeeye hay-adda waxay sheegtay in celcelis ahaan bishii la weeraro 3 jeer kadib 5 sano oo ay socdeen dagaal la xiriira qowmiyad iyo diin waxaa ku barakacay dad ka badan 250,000 nin dhalinyaro ah oo u dhashay waddanka Ghana oo la yiraahdo Franka Dako ayaa sameeyay baaskiil lagu wadi karo biyaha wuxuu bishii Agost ee sanadkii tagay bilaabay samaynta baaskiilkaasi wuuna ku guuleystay dadaal badan kadib wuxuuna dhammaystiray wuxuuna ku tijaabiyey haro ku taala meesha uu ku nool yahay hadda farsamayaqaankan dhalinyarada ah wuxuu aaminsan yahay shaqada uu sameeyey wuxuuna go'aansaday in uu ku tijaabiyo caalamka baddana uu ku tijaabiyo My name is Frank Dako and I live in Takoradi. magacaygu waa Frank Dako waxaana ku noolahay Takoradi waxaan sameeyey baaskiil biyaha ku dul soconaya oo xal u ah carruurta dabaasha ka hor intaysan iskuulka aadin ee ku nool tuulooyinka fogfog ee dalkeena sanado ka hor waxaan fiirsaday barnaamij TV oo muujinaya carruur dabaal ku tallaabaya si ay iskuul u aadaan markii taasaan arkay waan ka murugooday arrintaas waxaana nafteeda u sheegay maxaan carruurtan ku caawin karaa waxaan bilaabay fikir ugu dambaynna waxaan helay fikraddan ah samaynta baaskiil biyaha lagu dulwadi karo baaskiilka wuxuu ka samaysan yahay alwaax weyn aluminiyam iyo alwaaxyo yaryar alwaaxa weyn waxa uu ka dhigayaa mid biyaha dul sabeeya birta wareeganaysa way socodsiinaysaa siligana sidaad og tahay waa midka lagu kaxeeyo silsiladda waxay wareejinaysaa biraha si ay u socodsiiso biyaha marka ay dhaqaaqaan baaskiilka horay buu u soconayaa waxaan doonayaa inaan xalliyo carruurta dabaasha marka ay iskuulka aadayaan ee tuulooyinkeena ku nool waxaan ku bixiyey 400 oo siidhis lacagta Ghana oo u dhiganta $100 fulinta mashruucan mustaqbalka waxaan filayaa inaan ku dari karo waxyaabo fududeeya si uu uga fiicnaado midka aan hadda sameeyey dhaqaale badan oo aan ku sameeyo ma hayo mustaqbalka haddii aan helo meel wanaagsan waxaan samayn karaa wax ka wanaagsan midka hadda aan sameeyey waxaan dareemayaa sharaf sababtoo ah Afrika badankeena ma fahansanin tiknoolajiyadda waxaana awooda inaan midkan sameeyo mustaqbalka marka aan helo deegaan ii fududeeya waxaan shaqaalaysiin karaa dad badan oo mashruucan ka shaqeeya taasina waxay xallinaysaa shaqala'aanta dalkeena markana wararka ciyaaraha ugu waaweyn Arsenal ayaa kala soo wareegtay naadiga Dortmund weeraryahanka Gabon u dhashay Pierre-Emerick Aubameyang waxayna ku soo iibsadeen lacag gaaraysa $80 milyan. Dortmund ayaa deyn kaga soo qaadatay Chelsea Boutshayi war goordhow soo dhacayna waxa uu sheegaya in ciyaartoyga Arsenal ee Ozil uu heshiis cusub la galay naadiga oo ah ilaa iyo 2021 Arsenal waxay ka faa'iideysan doontaa goolasha Aubameyang waxayna xalay la kulmeen jab kale Swansea ayaa 3-1 kaga badisay Liverpool ayaa soo gashay booska afraad kadib markii ay si xaraga leh oo 3-0 kaga badisay Huddersfield halka West Ham iyo Crystal Palace ay 1-1 barbara ku galeen ciyaarta ugu weyn caawa waxay ka dhacaysaa Wembley halkaasi oo Tottenham iyo Manchester United ay isku arki doonaan ugu dambeyntiina shimbiro ka mid ah shaqaalaha garoonka diyaaradaha Mexico City shimbirahan gumayska ah waxay shaqadoodu tahay in shimbiraha kale aysan ku dhicin diyaaradaha ama aysan mashiinka diyaaradda gelin nolosha 44 milyan oo ruux oo ribaarkaasi marta ayayna ilaaliyaan si guul ah ayayna u duulaan wararkan iyo kuwii ugu dambeeyaba waxaad kala socon kartaan oo aad ka helaysaan boggeena bbcsomali.com intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena caawa waad ku mahadsantihiin daawashadiina inta aan kulmi doono aniga iyo dhammaan asxaabta waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad gelyo